بسم الله الرحمن الرحيم. مجيء عبد الساق على عبد الله كان من بعض البنات علوم البيرة. هذا ديارنا يا مستر ديجري فقلت أفكر ديبارتمنت أوف فود إنجينيرينج. وحرم عن كانينا بوادين إيدي رجلين أنت بقى أودينه بعض أخويا هنا الصوماليات وأديك بشر الصوماليات كأحد بعض البنات علوم البيرة وأي وفرين معلومة على الصومالي إنستيتيوت أوف أجريكلتشر oo ay ugu talagaleen inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda baranaysa culuumta beeraha. runtii waxaa xaqiiq ah la iska intiri karin in uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa ee loogu talagalay macadkaas in laga furo maadaama wadanka muddo 20 sano u burbursanaa ardayda Soomaaliyeed ee baranaysa culuumta beeraha aysan helin macaahid noocan oo kale ay aqoontooda ku kordhiyaan aysan helin. waxaa muhiim in macadka noocaani dadkii furan loo hambaliyo dhiirigelin loo sameeyo. runtii waxay sameeyeen dad badan wax sugayay ay xalqaameen ayna qabteen. xaqiiqda jirta ayaa in dhalinta Soomaaliyeed ee baranaya culuumta beeraha maanta aysan helin aqoontii ku filan aysan helin. ay u baahan yihiin in lagu kaabo ama meelo kale laga dhiso sida seminaaro loo qabto oo kale in koorsooyin caadi qof kastaba meel maadooyin ku liita in maadooyinkaas qofkaas laga dhiso si qofkaas uu noqdo qof meel walba ka tirsan oo diyaarsan. sidoo kale waxay kale u sameynayaan practical oo kale in ay ardayda fieldiga ay geynayaan ay wax badan ay ka xaqirayaan. runtii maadaama wadankeenu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha waxaa lagama maarmaan in la helo aqoon-yahano Soomaaliyeed ee beeraleydaasi maanta sida qaldan ama sida dadka sida hore wax soo saaray in laga bedelo oo dunida casriga maanta sida wax soo saarato oo kale in la soo saaro si faqriga maanta wadanka ka jiro aad u yaraado. xaqiiqdii isma lahan bulshada wadanka ku nool iyo inta dhul maanta ku haboon in wax laga soo saaro. intaana waxa ugu wacan aqoon la'aan ka jirta dhanka saaxada culuumta beeraha. beeraleydu waxay u baahan yihiin arday ka kaafisa ama tababaro u fidaysa qaabka ugu haboon ee wax ay ku soo saaran lahaayeen. laga yaabay qofkii inuu haysto agabkii beertii laakiin uusan haysanin aqoon ku filan maanta inuu wax soo saaro uusan heli karin. dhibaatada ugu weyn ee haysata waxaa kamid ah bishan bilowgeeda waxaan ka cabanaynaa baahi iyo abaar iyo biyo la'aan. isla bishii dhammaadkeedii haddana waxaan ka cabanaynaa in fatahaad ay dhaceen. intaas waa aqoon la'aan iyo cilmi yari noo geysatay. runtii waxaan isleeyahay macadkaani wadanka wax badan ayuu kusoo saacidin doonaa. dhalinyarta maanta culuumta beeraha barata wax badan ayuu ka bedeli doonaa. sidoo kale macadkaani waxyaabaha uu qabanayo oo runtii aan aad ula tacajabay ee aan nafsadeeda aan fikay aan si gaar ah dhiirigelisay inaan maanta fiidiyowga soo duubo aan ku dhiirigeliyo waxay sameynayaan cilmi baaris in dhibaatada maanta beeraleyda haysato la xalliyo. waxaa ka horeysa in dhibaatadaas la ogaado. taana waxaa lagu ogaan karaa in cilmi baaris la sameeyo. cilmi baaristaas la sameeyo cilmi baaris ku salaysan xaqiiqda saxda ee jirto si wax xal loo helo. waxaan isleeyahay marka wax badan baa hadda maanta isbedeli doona haddii macadkaani uu sii dhaqaaqo ardayda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan. waxaa isleeyahay wax badan baa iska bedeli doono wax soo saarka dhanka beeraha wadankeena horumar dhaqaale buu ku tiirsan doonaa insha Allah. waxaan leeyahay ardayda Soomaaliyeed ee maanta nasiib ku yeeshay inay helaan macadkaasi inay sidii loogu talagalay ay ugu faa'iidaystaan. dad badan oo horey u soo bartay culuumta beeraha oo aniga waa ka mid ahay aan nasiib u yeelan inay helaan macadka noocan oo kale si ay isku dhisaan ama culuumta ay baranayaan ay aqoon badan ay ugu helaan. marka dadka maanta jooga ee jaaniska u haysta waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iidaystaan macadkaasi si ay noloshoodu ama maxaa la dhahay ay u horumarto aqoontooda ay u horumarto. aad u mahadsantihiin waan ku mahadsantihiin sida bulshada u adeegteen runtii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.